بسم الله الرحمن الرحيم. horta marka ugu horeysa waxaan tacsi u diray awlaasheena iyadoo ku jirta dadaalka Somalilandiska iyo dhalinyaradu inay wax badan ogaadaan waalidkeed qadarkii ku yimi Ilaahay waxaan ugu rajeynayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariis janno geeyo iyagana inta nool la samriyo iimaan waa la ka siiyo waa sanad cusub waxaan jecelahay inay wax badan isbedelaan oo 2019 inooga duwanaado 2018 ummadii haddaanay waqtiga la socon oo isbedelka bulshada ku dhacaya aan la jaan qaadin sanad walba waxa dhacaya oo aynu 18 u taagnaano ama wax u eeg 29kii ay Soomaaliland ka jiraan ummad hore u socoto markaasi ma noqonayno marka Ilaahay waxaan ka rajeynayaa sanadkan 2019 noqdo sanad inooga duwan 2018 aniguna waxaan go'aansaday inaan wax badan ka bedelo sidii aan dhalinyarada fariinta u gaarsiin jiray waxaan jecelahay inaan la hadlo cid doonaysa in la hadlo kula hadlo waqti kooban insha Allah ta'ala kuwaas ay noqdaan kuwo leeyimin niyad wanaagsan qalbi iyo dhaga furan markay halkan ka baxaan ruugi kara wixii lagu yiri inta afacda ka qaadan kara wixii aanu cuntabin inay qaadan karin iska dhimid gareeyo oo ka taga dabeetana ugu yaraan 1% markay ugu yartahay isbedela sidoo fikiraya bedeli karta sidoo u doodo bedeli karta sidoo wuxuu sheega bedeli karta sidoo wuxuu arka bedeli karta haddaynan horumar samayn oo aynaan maalin walba iyo saacad walba oo inaga tagtay saacada soo socota aan inooga duwanaanin waxay noqonaynaa ummad halkeedii taagan Ilaahay waxaan ka rajeynayaa caawa intiina halka fadhida inaad tihiin in qabta in sanadka 2019 ay noloshoodana bedelaan iyaguna isbedelaan sida wuxuu arkayaan sida wuxuu u dhageystaan sida u doodaan sida u hadlaan aad iyo aad ay ugu duwanaato sida soo ahay 2018 Ilaahay saxan ka baraya marka mawduucan la yidray intaan gelina sayowaan u mahadnaqaya in meeshan buuran waa meel iska khayr qabto Somaliland tan berigii loogu soo nabaadeen xiriirta 9kii wixii ka dambeeyay ma dhacdin Puntland sideedii iska tahay marka uu dhalinyaro oo laga sameeyay Boorama oo Hargeysa marka maanta intuu yimi haddana goboladii oo dhan wada gaaray waxa weeye runtii wax aad loogu mahadiyo dhalinyaradaana waxaan iyagana ku boorinayaa in sanadkani uu noqdo sanad ka duwan 18kii dadaalka ay laba laabaan iyagu is sii jeclaadaan isbedelaan Soomaalidu waxba ma kala barato xasadkuna waa badan yahay cagaha isqabataa in iyagu noqdaan qaar iyagu midba midka kale uu dhameystiro insha Allah ta'ala way guuleysanayaan mawduucayga marka waxaan ku dadaalayaa caawa inaanan meel laba uga bixin oo mawduucaas aynu u wada joogno una ka hadlo si marka waqtiguna marka inuu ugu barakoobo sanadkuna sanad ka duwan 18 uu noqdo waayo 18 iyo 17 waynu baydbaynay wadan jacayl uma la baydbaynayo mararka qaar kood inagu doona dhalinyarada la hadalo ayaynu doonaynay inaynu 30 daqiiqo siiyo 7 arrimood oo muhiim oo sida dhalinyaradu u muhiim inaad ku soo koobto oo soo wada geliso marka caawa waxaan ku dadaalayaa noodkayga inaan raaco oo aanan wax ka baxsan waxa la diray aan insha Allah ta'ala soo dhaxgelin idinkana waxaan idinka rajeynayaa inaad si fiican u dhageysataan dabeetana dooda iyo rugrug uu noqdo markaynu dhamayno inta ka anfacdana aad ka qaadato intii aan ka ficina aad iska tuurto hadday wax ka dhimayna aad baadi doon tagtooda u buuxsato waayo marka doorka dhalinyarada laga hadlayo waqti koobana lagama hadli karo saacado koobana lagama hadli karo maalmo koobana lagama hadli karo waayo qiimaha dhalinyaradu waxa ay ka yihiin adduunka iyo Somaliland waynu dul istaagi doonaa qiimaha markaad ogaato ee sugaato doorkaagana lagama hadli karo saacadii 30 minutes iyo wax ka yartoona lagama hadli karo dhalinyarada in doorkooda loo sheego waa badweyn weey halkaynu marka ka bilaabayna yaa dhalinyarada baynu ka bilaabaynaa
saynu u wada socono oo markaan idin la hadlayo aydan aniga ii soo eegin aan dhalinyaro ahay oo kale oo anigu iska hadlayo oo anigu doorkayga ka hadlayo marka haddayna sumad u yeelin yaa dhalinyaro ah lecture-keenani macnaama muxaadaradeennani macnaa ma samaynayso waayo waxaad moodaysaa inuu cabdikariin doorkiisa ka hadlayaad moodi doontaa dee Somaliland anu waxaan ogahay I know Somaliland qof kasta waa dhalinyaro tan Somaliland lama koraba qofku maba weynaadaba qofku maba weynaadaba idinkuna waa u sacabatuntaan mid gafuurka iyo madaxuba cadaaday oo wali dhalinyaro sheeganaya baa tirahdaan dhalinyarada waa u saqsan wasiirka dhalinyarada siyaasiga dhalinyarada war dhalinyaro ma hadee marka waxaan doonayaa caawa inaynu sumad u yeelayaa dhalinyarada Somaliland ka dhigna meel la koro mararka qaarkood marka doorkiina ilaa marka cabdikariin markuu dhalinyaro ku soo noqdo wuxuu idinku haystaa doorkiina buu idinku haystaa and I want you to know that this role is yours da'da haddii uu intaa gaadho doorkaa kulama laha isagu kulama laha Somaliland sidaasay ka tahay oo ninkaa konton jirkii wali dhalinyaro sheeganaya laakiin internationally anybody between 50 to 30 ayaa dhalinyaro loo yaqaana 15 jir haddaa tahay waliba waa markaan qaatay in Islamic context haddaynu takalo u tagno 18 bay ka bilaabanayo laakiin wadamada islaamka abad ku noqonaysaa marka 15 jir hadda Somaliland boqol muslim baynu nahay inta u dhaxaysa 15 jir ilaa 30 jir baa dhalinyaro ah 15 jirku Somaliland hayskaba ciliirsaday ila waa meel aan la gaboobine laakiin in afarta kii dhaafay dayaanadu dhalinyaro ah oo idina sacabka u timinada ila isku baahi ma tihidino isku door ma tihidino isku wax ma doonaysaan oo isku si wax uma aragtaan laakiin waxaan doonayaa inaan dul istaago inaan baa maanta soo qortay in joogto moojiye habluhu miyay ku jiraan marka waxaan isirtolow inuntu hablaheenu mala wali ma ogaa dumarku habluhu dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland marka la isaa loo eego hablaha ay namada ka badan marka age-keenu ka hadlayna waxa weeye ka u dhaxaynta regardless of gender adigoo nu kala eegeen inan iyo inan anu kala eegeen way inta haddaynu sumadnay oo inu dhalinyaradii isla garanayno waxaan doonayaa dhagaha ugu dhageysanaysa indhaha ugu arkaysaaba inay noqoto indhaha role ka laga hadlayaa waa ilmo 15 jir waa nin dhalinyaro 15 jir ka weyn oo 30 jir ah haddaynu Somaliland ku cudino ilaa 35 ka aynu ku cudino sida markaa u qaado way I know in Somaliland iyo bulsho kasta oo adduunkan koonkan Ilaahay dushiisa joogta in dhalinyaradu tahay laf dhabarta bulshada laakiin Somaliland markaynu gaar u dul istaagno laf dhabartiina waa tahay asadka quraatay Somaliland haystana waa tahay waayo sababma ayad saawtay boqolkiiba 75 dadka reer Somaliland waxay ka yar yihiin 35 jir rumaysa ama rumaysan marka haddii aad saaw eegto marka laga hadlayo Somaliland waxa laga hadlayaa nation ama ummad intooda badan ay tahay dhalinyaro ee laga hadlayaa the world population dadka adduunka iyaguna boqolkiiba inta u dhaxaysa 42 ilaa 45 jir ayaa 25 jir ka yar oo taasoo macnaheedu yahay halkana adiga u ah laf dhabartii asadka quraatay Somaliland haysataana waa adiga adduunka marka loo eegana wax ka yar boqolkiiba 55 ka yar 5% ka yar ayay da'du ka yar tahay 25 jir haddaynu 25 kor uga qaadno da'da dhalinyarada tagnana dadka inta badan dhalinyaro ay noqonayaan laakiin wadamada qaarkood inuu ka hadli doono in doona 10 ka barano dadkii yaryaraaba ma dhay siday markaa saameyn ugu yeelatay baan doonayaa hadhow inay idinku sii daba gashaan waxa
waxaan ka hadlayaa waxay ku sheegayaan haddaad dhalinyaro tahay you are the majority. A majority with no voice. intii badnayd haddana cod lahayn مش معقول. لكن idinka la idinka arkay idinka la idinka arkay because Abdikariim baa loo haystaa dhalinyarada moogtahay. This is your problem, and I want you to know that you are wrong. I'm not youth. ما إيه dhalinyaro. I'm a friend now. But taariikhda dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya ma ku suntanahay because jir baan ku bilaabay halganka. roolkaygana waan qaatay, xuquuqdaydina waan ogaaday, codkaygana kor baan u qaaday, waan doontay xaqayga ama aan hel amaan waayo. 17 jir baan ahaa, 17 years old. hadday sidaa tahay, in the world and in Somaliland, wallahi billahi Somaliland iyo adduunkaba hadday sidaa tahay, adiga la'aanta wax shaqeynaya ma jiraan. The economy cannot function, dhaqaaluhu ma shaqeyn karo, wallahi ka tay. And the economy will not grow without you. adiga la'aantaana ma kori karayo dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. bulshada Soomaaliland lama horumari karayso adiga la'aanta. rumayso ama rumaysan. koritaanka dhaqaale ama horumar ee bulsho dhexdeeda ka dhaca dhinac kasta haddaad ka eegto, bulsho ahaan, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, waxay ku xidhan tahay dhalinyarada bulshadaas ay leedahay. laakiin mushkiladda kala duwanaanshaha dhalinyarada Mareykan joogta ama wadamada kale joogta ama Namibia Afrika ku taala ama Rwanda joogta iyo adigu waxa ku kala duwan tihiin adigan doonaya cilmi baadhade. marka xaqiiqdu waxa weeye adduunkana saasay ka tahay saddexda arrimood ee waaweyn haddaad dhinac walba ka istaagto, bulsho hadday noqoto, hadday siyaasad noqoto, hadday dhaqaale noqoto, dhalinyarada ku xidhan wax waliba dhalinyarada ku xidhan yihiin. dhalinyaro marka la leeyahay anu waxaan aaminsanahay wadan bilaa dhalinyarada waxa uu duug buu noqonayaa, baali buu noqonayaa. maradu markay calal noqoto soo iskama googoodo. wadan aan dhalinyaro lahayn oo dhalinyaro lahayn marka waxaan oonay wadan duuga, fikir duuga oo leeya, hogaamiyaal duuga joogaya, sida wax loo maamulayo waa si gabowday weeyaan, casriga lama jaan qaadi karo because duniduna waa digital world, waa duni gebigeeduba tiknoolajiyadu hogaaminaysa deeg. marka aan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu they renew and energize everything because you are new. waad cusub tahay, mar haddaad cusub tahay wax walba aad cusboonaysiinaya. waana sababta markay dhalinyarada jirto loo yeesho riyooyin cusub loo yeesho oo ku saabsan Somaliland sidaad uga dhigayso dal wanaagsan oo ka wanaagsan sidoo maanta yahay. waxaad cusboonaysiinaysaa hogaaminta, waayo waxaad soo saaraysaa hogaamiyaal cusub adigay ka soo dhex baxayaan ama waxaad soo saaranaysaa qaar adigu aad sidato oo waxaad aaminsantahay kula aaminsan oo baahidaada kula fahamsan. waxaad cusboonaysiinaysaa oo la imanaysaa technology dunidan ay hogaaminayso farsamooyinka casriga. curin baad la imanaysaa, xirfado cusubna waxaad ku soo kordhinaysaa in job industry. waayo wadanka shaqadiisu haddaan kolba xirfadaha markaa shaqaynaya imka waxaad aragtaan wadamo kombaniyadu ka yaacayaan, waxay u yaacayaan wadamo kale. laba faktor baa la eegayaa, waxaa la eegayaa tirada dadka skilled-ka ah ee wadankaasi leeyahay iyo qiimaha ay ku shaqaynayaan saacadii ayaa khasbaya markaa kombaniyadu inay wadanka ay labadaasi qiimuhuna jaban yahay, dadka dhalinyarada joogaana ay skilled yihiin. marka kombaniyada inta adduunyada kale ka soo guuraan ay u guurayaan sida China oo kale. marka Somaliland de warshadaheedu ama maxaan ku dhahdaa imaka waxa ugu badan la qabtaa waa dhismayaasha. haddaan dhalinyaradu ku soo kordhin xirfado cusub
oo aanay xirfado cusub la iman waxa hubaal noqonaysa marka dad ajnabi inay maadaama shaqada ay noo qabtaan inagu aynu qaban kari weyno iyaduna waa taas sidoo kale door kale muhiim ah baad leedahay oo waxaad buuxinaysaa halkii uu ka tagay qofkii gaboobay oo waa halkay ka imanayso ciidamadeenu way gaboobi doonaan injineeradeenu way gaboobi doonaan siyaasiyiinteenu way gaboobi doonaan dhaqaatiirteenu way gaboobi doontaa abwaanadeenu way gaboobi doonaan dhimasho iyo wadba iman doontaa meelay banayn doonaan halka ayaa buuxinaya marka qofka dhalinyaradii waxa weeye intaasoo mas'uuliyadood oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa baa ku sugaysa halku hadraawi ka baxay baa la doonayaa halku gaariga ka baxay halku hadraawi jooga la doonayaa haduu bari ka baxo cidii buuxin lahayd halku gaariga ka baxay baa la doonayaa cidii buuxin lahayd hadee waxaa la rabaa dadka aqoonyahanka ee jaamacadaha inoo dhigaya markii indhaha beelaan ee dhaguhu cuslaadaan ee dama wadkuba u yimaado de jaamacadii waxay u baahan yihiin professor cusub dhalinyaro wax baratay oo halkoodii buuxisa marka iyadana halkii uu ka tagay qofkii weynaa idinka ayaa buuxinaya arin kale oo muhiim ah qabataan anu waxaan aaminsanahay hadii dhalinyaradu aan jiri lahayn waxa manteen garaysaan oo ilaalisaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo qiyamka bulshadu ay leedahay waxaan aaminsanahay marka dhalinyaradu ay marato ee dhalinyaradu yaraato ummad hadii dhaqankeedu dhinto iyadoo way dhimataa dhaqanka afka la dhintaa dabeetana dhaqanka waxa la dhinto waxay bulshadaasi gebigeeduba ahayd baa la dhimataa labadaasba daaqada ka baxayaan marka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga ayay tahay jiilba jiil iyaga ka reebay dhaqanka hore ee ummadeenu lahayd iyaga la soo hadhaya marka taasina waxa weeyaan waa door muhiim ah waxaan tusaalayaal soo qaadan doonaa wadamada dhalinyaradu wadamada dhaqaalahoodu dhimanayo waayo tiradii dadka da'yartaaba yaraatay oo waxa farabatay dadkii gaboobay ama waaweynaa waxaana tusaale fiican inoogu filan wadanka Japan iyo wadanka Talyaanigu imika isagu dhaqaalihiisii wuxuu la luxmayaa uu la socon laayahay la kori laayahay dadkii dhalinyarada ahaa waxa ku farabatay wadanka Talyaaniga dadkii waaweynaa ama da'dii 60 jirka dhaafay ayaa farabatay wadanka Japan oo aad u walaacsan oo warwarsan isaguna wuxuu walaaciyo warwar ka qabaa maadaama dadkii waaweynaa ay farabadanayaan waayo tarankii baa yar marka labada example baa jira marka waxaad arkaysaa xitaa marka dhalinyaradu meesha ka baxdo bulshooyinkaasi dhaqaalahooda jiritaankooda horumarkooda dhami istaagaya ma socon karayo lama sii wadi karayo marka role muhiim weeye kaasi marka I want you to know down inaad qorato it is you and it's your role to maintain and protect the culture and if culture dies nation dies mas'uuliyadda iska leh inaad joogtayso inaad ilaaliso dhaqanka aynu leenahay dhaxalkiisii adigu inaad hayso hadii ummad dhaqankeedu dhintana iyaduna way ummadaasina way dhimanaysaa dunida casriga ah awooda mustaqbalku waxay ku tiirsanaan doontaa laba shay bal labada shayna eega labada shay waxa weeye number iyo age way barigii hore wadamada adduunka waxa la oran jiray wadanka dadkiisu farabato waa imtixaan waa fakhri lama gaarsiin karayo maxaan ku radaa serviceski loo baahnaa dhaqaalaha lama joogteen karayo wadanka China wuxuu beenayay marka aragtida marka waxay noqotay marka numberka populationka wadanku waa strength waxa weeye waa quwad weeye awood weeye sidoo kale iyadana waxa adduunyada casriga ah la leeyahay da'du waa muhiim koritaanka dhaqaale iyo horumar ee bulsho ee wadankaas oo muhiim iyaduna marka iyadana waxaan doonayaa inaad soo eegtaan oo soo fahamtaan ina muhiimadda leedahay adduunyada oo dhan dhibaatooyin bulsho way jiraan laakiin waxa lagu kala nasiib badan yahay bulshada halka ku nooli waxay kaga nasiib badan tahay bulshada kale leeyihiin dhalinyaro who are there to solve and fix the problems that particular community has mushkiladda dhalinyaradaasi bulshadaasi malada dhalinyaro u diyaar ah oo ka go'an tahay inay xal u helaan mashaakilaadka bulshadooda haysta marka tusaalayaal yaryarna marka waan soo qaadanaya
waxaa kale oo doonaya inaan halkaa ku daro laba mushkiladood oo waaweyn baa inagana haysta oo loo baahan yahay in laga bareero waa qaad iyo qabyaalad marka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya xal miyay u haysaa labada mushkiladood oo waaweyn mashaakilaad badan oo kala badan baa ina haysta laakiin labadani waa laba ina baabiinaya marka bulshada Soomaaliya waxay nasiib badnaanaysaa haday hesho dhalinyaro ka fikiraysa 24 saacadood inay xal u helaan mashaakilaadka bulshadooda haysta marka here I want you to know that your role in mas'uuliyadda ay ka saaran tahay oo doorkaaga tahay inaad xal u hesho mashaakilaadka haysta bulshada reer Soomaaliland waxa kaloon walaal doonaya inaan idiin sheego ummadan inaad u shaqaysaa mas'uuliyadda aad ku saaran tahay image-ka Somaliland sawirka Somaliland si Somaliland loo arko ama adduunku inoo arkaya ama jaarkeenu inoo arkaya ama inagu baan soo arkayno waxay walaal ku xidhan tahay idinka ku xidhan tahay waayo 50% baa tihiin idinku hadaa wanaagsanaataan oo wadaniin noqotaan oo dalkiina dhisataan oo waxa xun u diidaan oo wanaag u istaagtaan oo madax fiican doorataan hubaal waxa Soomaaliland marka way image-keedii iyo sawirkeedu dhamuu isbedelaya waana anigu halkaan ka keenay Soomaaliland uma baahna dibad wareeg resource badan naga baxay gudaheena inaan hagaajisano oo dhaqaalaheena tashiilano oo shaqo abuur dhalinyarada u sameeyno oo magaalooyinkeena qurxisano markaas la oranayaa war meesha Soomaaliland mucjisa ka socota waxa ka socda workforce dhalinyaro aqoon-yahana oo skillida markaynu yeelano baa la oranayaa marka halka waxa jooga 2 milyan iyo 400 oo qof oo dhalinyaro ah oo dhamaantood wax wada bartay baa jooga marka company-gu ku soo dhiiranaya inuu inoo yimaado marka taasina walaal mas'uuliyad ku saaran weeyaan waxa walaal kaloon doonaya inaad ogaato dhalinyaro marka tahay waxa ku saaran inaad saxdo hogaamiyahaaga macnaha markan hogaamiye leeyahay there are so many different leaders dadkeenu marka hogaamiye laga hadlo qof uma kula cararaan yes hal qof baa ugu weyn hogaamiyaasha jira Somaliland madaxweynuhu noqonaya laakiin there are other thousands of leaders macallimiinta kuwa enjooyada inoo jooga kuwa masaajid culimada maxaan ku dhahdaa ganacsatada dhalinyarada entrepreneurs-ka ah ee ganacsiga cusub soo kordhiyay dadka followers kale dadka loo qushuucsan yahay abwaanada kuwa dadkaas oo dhan hogaamiyaal bay noqonayaan marka walaalayaal waxaan doonayaa in ayadana fahamtaan adduunkana saasay ka tahay waxaan Soomaaliland ku soo leexiyay maaha ha u qaadanina inaan mas'uuliyadda Soomaaliland ugu la soo doontay laakiin haddaad cilmi baadhaan waad ogaanaysaan waxaan idin sheegayaa dhalinyarada adduunku marka ay qaldamaan madaxdoodu they are there to correct the leaders sidoo kale most importantly dadka dhalinyarada they fight against corruption because corruption kills nations kills economy dhaqaaluhu baabiin ummadu baabiin kaagay ayuu aware marka ma tahay qof ogaala oo og oo xogta haya marka qofka madaxdii ku xado wuxuu xadayaa in aanay ahayn adigu waxa tahay ka oranaya ilmaadar baan nahay xadee iska daab ku shaqaysiya laakiin waxa ogaataa adduunyada ninka kula mid ah dhalinyarada yahay marka qofka madaxdii xado wuxuu noqdaa qofka ugu horeeyo codkiisa kor u qaada inta social media fadhida inta way laakiin cadow bay isu wada tihiin social media halka xuquuqdiina codkiina ku halka damaan kaga hadlaya door kale oo leedihiin oo idaan door ka qaadan kareen if you are not united haddii idinku dhexdiina midaysnayn because in social media you fight against each other because you belong different tribes so whenever I say that politician against that politician then kii ay isku raarkaan wuxuu oranayaa anagu noo jeedaa because wuxuu ka hadlayaa madaxdii isna baada saas ma aha noloshu saama nolol wanaagsan saa kuma helisid waxa la doonayaa aabaha oo daqaldan haduu ay noqoto qofka wareeg ka hor yimaada haduu aabaha mustaqbalkii adiga iyo walaalka iyo in adeerka iyo hooyadaaba xadayo it's better you say than inaad ka aamusto marka dhalinyaradu walaal mas'uuliyadin weeyaan waxa weeye waa hawl idin taala inaad ka hadashaan musuqmaasuqa iyo waxaan la ilaaliyay laalushka qaadashada labadaaba inaad ka hadashaan dabeetana arrimo badan baa halka soo gali doono oo eexda iyo qaraabo kiilku waa nooc kamid ah iyadoo qabyaalada la adeegsanayo qabiilka la adeegsanayo musuqmaasuq lagu sameeyo musuqmaasuqu far badan yahay
marka adigoo master haysto wax bartay de marka shaqadii abla garayso adiga cabanayo un de la hebel baa loo xaday hebel baa la siiyay oo adiga la marka u istaagtaana walaal marka waxaan doonayaa roolkan waxa la yiraahdaa you stand and demand accountability every single story is about your future adiga marka aan rabo walaal inaad door ka qaadato inaad u istaagto oo aad kor yeesho wada xisaabtanka xaqna waad u leedahay madaxdaada inaad ka codsato in la wada xisaabtamo nin wada xisaabtan diiday waa nimaan ummadda nolol doonay war nin aan xisaab ogolayn madax ma noqon karo ummadaha horumarayna waxay ku horumareen waxa weeye accountability arinta doorka ilaalinta qofka madaxda in la xisaabtamo isla xisaabta ogolaado waxay horumar ku gaareen marka wal doorkaana waad leedahay waayo mustaqbalkii baa tahay mustaqbalkana adiga cali idinka imika waxa la idin sheegaa oo the future of tomorrow you are not the future of tomorrow you are the future of today at the same time mustaqbalka liftigiisu waa adiga ba adaabo ama bariha aata ama maanta aata mustaqbalku waa adiga weey marka hadii wixii la xaday la khariba oo adiga laga xadayo de waa mas'uuliyadaada anu kuma lihin dadka dib kuma lihin ay laakiin inay Soomaaliya noqoto dal accountability gu gaar halka ugu sareysa dantaada weey waxa kale oo walaal u baahanahay inaan kor u qaadno roolka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay walaal horumarka bulshadeena waayo stakeholderka ama marka la soo ururinayo daneeyaasha in bulshada Soomaaliland isbedesho oo ay horumar samayso maadaama aynu dhib 5% ma dhalinyaro ah de halka inaad ka maqnaato maaha waayo Soomaaliland horumarkeedii bulshadeeda in la bedelo oo horumar dhaco lagama hadli karo adigoon joogin de waayo haddaad maqan tahay 5% ma de maqan de marka waa inaad halka de joogto walaal waa inaad joogto halka weey laakiin waxa inaad halka joogto oo aad ogaato adigu dhalinyaro ahaan doorkaaga waa inaad ogaato ilaa qoyahan baa to cilmi baadha tahay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland imisa ku nool adduunyada waxa la yiraahdaa qofku haduu maalintii wax ka yar $1 soo galaan faqrigu gundihiisu yaala marka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ma halkii $1 laga ma hadlayday halka taalisa soo ogaato ma halkii $1 kama hadlayno marka horumar laga hadlayo in la ogaado qofka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland imisa kamida 5% waa ilaa 2 milyan iyo 400 kun qof meelahaas ka hadlayna imisa intee bikiin inta soo gasho maalintii $1 hesha intee keeyay waxa kale inuu baahanay iyadana inaynu ogaano imisa waxba qorin imisa wax akhriya ila horumar bulsho laga ma hadli karayo haddaan sa arrimaha la ogaanay sidoo kalena imisa xanuun la nool xanuunadu marka maxay inoo sheegayaan waa tilmaamaha inoo sheegay mustaqbalkeenu dhimanayo dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii xanuun aan dawla ahayn ku dhacayo macaanka dhikarka aydiska xanuunada lahaynaya kaliya xanuun beer xanuun waa xanuunada ugu badan ee maanta Soomaaliland jira xanuunadaas hadii dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bataan maxaa dhacaya ya wax waliba waxa mustaqbalkiisa Soomaaliland dhimanayo weey taas oo noqonaya marka horumarkana waxa la doonayaa linkwa madaxweynihii bedelay wadanka Singapore wadada baabuurtu martay quruxda badan wuxuu ka horeysay wadada dadku maro ee baaskiiladu marto ay ka horeysay mar su'aasha la weydiinay wuxuu yiri haddaanay ummadu haddaanay ahayn bulsho haddaanay ahayn mid caafimaad qabta ma gaari karta halka ay u socoto intaanay gaarin bay wada dhimanaysaa de marka Soomaaliland dhalinyarada haduu macaan kaaga wada dhaco dhikar kaaga wada dhacdo ay isku wada dhaco qulub iyo trauma iyo waali ay ku wada dhacdo jaadku wada waalo ay wada ilka beelaan macnaheedu waxa weeye marka mustaqbalkiisa Soomaaliland uu dhimanaya marka taana in la ogaado loo baahan yahay iyo imisa qof oo dhalinyaro ah oo 30 jir ka yar oo inaga shan ku darnay ayaa bilaa amal ah oo shaqo ku dhaxayn Soomaaliland dhexdeeda marka codkaas waa inuu joogaa waa aduu marka taada war dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland intii badnayd $1 wax ka yar kama hadlayna $1 sumini baan xitaa ayaan soo galeyn boo inaad oran karto xanuunadii waa inaad u sheegto in shaqo la'aan jirto numberka shaqada la ee Soomaaliland aad u ka hadasho marka meesha haddaad ka maqan tahay waa mas'uuliyadaada inaad doorkaaga qaadato stakeholders ka mid noqoto marka laga hadlayo horumarka bulshada marka hadii la sameeyo community development committees in shacab area we should have members waa inaad xubno ku yeelato weey hadii laga tago oo ku jirin macnaheedu waxa weeye bulshada intii badneyd baa codkoodii laga tagay oo marka aan doorkoodii la siin laakiin adigu de diyaar ma tahay oo gudiyada inaad soo gasho codkaaga inaad kor u qaado xaqaaga inaad doonato arrimahan aan ka hadlayo inaad ogaato cilmi baaris ku samayso imisa dhalinyaro xanuunadu siday ugu badan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland imisa dakhliba soo galinba imisa shaqala dawladda miyaad u diyaartay arrimahan cilmi baaris marka dadna cilmi baaris soo bandhigto si loo ogaado
oo marka qorshaha horumarka la samaynayo bulshadan la yiraahdo wallahi arrimaan way wax laga qabtaa waxaan ku doonayaa walaal inaan idin sheego marka laga hadlayo ummad horumarkeeda macnaheedu waxa weeye walaal in dadka halka degaa group kasta ama koox kasta in ciidig marka in la engage gareeyo haday dhalinyaro tahay haday haween tahay haday kuwa waaweynaa tahay waa duruufo kala duwan bulshadu qabtaa oo dadka ka turjumaya duruufaha la doonayo ama dhibaatooyinka la doonayo wax laga qabtana waa in mushkilad kastaba cidii ay gaarka u khuseysay waa in halka fadhidaa marka adigu bay su'aashan kugu soo noqonaysaayo miyaad walaal qayb ka tahay marka laga hadlayo meelaha lagaga hadlayo horumarka bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland miyaad qayb ka tahay marka hadii jawaabtu maya tahay doorkaagii baa maqani deer raadsidee xaqna waad u leedahay idinkaan marka raba walaal inaad nodgaraysataan inaad u istaagtaan waxaan walaal doonayaa marka si doorkaadu qaadan karto waxaan rabaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay horta dhexdooda midoobaan arintaas waa arin muhiim ah markaad walaal midowdo doorkan qaado haddaan codkaaga midayn oo idaan isku jeeda lahayn oo idaan isku problem ka hadleen oo idaan isku dareen ahayn oo marka dhibaato ay ka taagan tahay xaafad gaar ah laakiin dhibaatadaasi ay haysato dhalinyaro adiga kula mid ah codka halka ka baxaya adigu ku khuseeya meesha doonta ka joog Soomaaliland haday dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland qolo kamid ay leeyihiin garoonkayagii baa la cunay ama garoon meel kubad ku ciyaarna ma haysana xaafad iblaayo codkaas waa cod adiga ku khuseeyay codka dareenka dhaqaajiya imka Soomaaliland waa ka qabiilka moogtaa tolaayada way laakiin waxa la doonayaa inay dhalinyaradu dhaqdhaqaaqdo marka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland saylac ku nool ay baahi iyo duruufo ka hadlanayaan ee codkoodu inuu soo gaaro waa inay dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland 75% of the nation waa inay marka arintaas dareenka dhaqaajisa oo marka codkaasi midooba oo la yiraahdo marka there is a problem here أو dhibaatada halka taaladan wax laga qabtaa waa arin anaga na khuseysay in la yiraahdo marka way laakiin taa waxaad sameyn karaysaa walaal markaad midoodaan ayaad sameyn karaysaa waxaan kale walaal doonayaa inaan idin sheego waxaad wax ka qaban kartaa oo doorkaaga qaadan kartaa imaka hadaad eegto our environment style deegaankeenu uu dhimanaya magaalada gudaheeda haday teen uu dhimanaya dibadda hadaad uga baxdana waad aragtay buuriyo dilaacsan gabiyanada go'ay dooxyada jeexjeexmaya barbiyo ku istaagmayso dhulkeeni baridho wuxuu soo bedelayaa saxare marka walaalayaal anigoo horta ay salute qolada dhalinyarada la rajo bergeed beer waan runtii hambalyeynaya aad baan u hambalyeynaya dadaal fiican bay wadaan dadaalo noocaas oo kala tusaale soo qaadanaya marka arrimaha bulshada la doonayo wax laga qabto dhibaatooyinka taagan waxaan nidhi bulsho waxay nasiib badan tahay marka ay dhalinyaro u diyaar inay dhibaatada iyadu xaliso marka haysato marka dhibaatooyinkeena haysta ma doonayo waxaan diidanahay intaan ka baxo inaan dhibaatooyin siyaasadeed inala gala sheego marka daas waa ma haynan in deegaanku si gaar ah aan ma garanaysaa saan rajo bergeed beer soo hadal qaado laakiin waxaan doonaynaa inaan mawduucan ka bixin oo inoo la gelin siyaasad iyo meel dadamqaysa inaad ka hadlaan diidanahay marka walaal dadaaladaas oo kala sameyn kartaan haddii marka kuwan rajo bergeed beer ay dhil noo beerayaan haddaynu maalinta jimcaha walaal isku abaabulo kontonan oo ay marna lug inoo noqoto marna barta jeexjeexa buurta hoosteeda oo ka bilaamayaan dhagaxa ku gurno waxa hubaal roobku markuu doo hadaad ku noqoto ciidii buurta ka soo daadagtay tagi lahayd iyadoo istaagtay dabeetana doo ka soo baxay oo dhirti baxday haddaynu qaadano buur Hargeysa ku taala oo buurta aynu maalinta jimcaha ku wada dul balanno oo aynu gabiyano u sameeyno u celiyo ciida oo in biyaha dhagaxa inta inuu dhigno dhagax markaad moosto ciidii soo daadagaysaba ayaa u imanaysa ciidii buu qabanaya dhirtaynu ku beernaa waa hubaal way baxaysaa laakiin waxaan u baahnay wacyigelin inuu dhaqaaqade inaan geedka la gooyin inaan dhagaxayna meesha dhignay laga qaadin ilaa duu mid kale yimaado soo intiba ka gabiyanadii wada baabay waynu qaban karnaa marka waxaan doonayaa inaan tusaaleeyo ku soo qaato waxaad sameyn kartaan dadaalo noocaas oo kala walaal waxaynu sameyn karnaa ololayaal nadaafadeed maalmihiina firaaqada saacadeena firaaqada waxaynu samaysan karnaa garoonadeena kubadda cagta aynu ku ciyaarnayno qurxisan karnaa oo hagaajisan karnaa maalin dhaweed niman dhalinyaro soo maray adhowana Said the Village waan ku leexday waan ka naxay garoonka ku ciyaareen waxaan ku dhawaad waxa garan weydeen maalinta jimcaha inta balantaan inuu nin waliba madaraq yar ama gudin yar intuu heli karayo soo qaato oo dhagaxan ka soo taagtaagan garoonka wax meel ku ciyaari karaysaan maaha
kubaddu wana caafimaad horseeda in dhibaato horseeda ma aha ma waxa garan weeyay afar laakiin inay ciyaaraya anna waan idin imanayaa inaad noo soo qaadaan nin walba 10 dhagax ka soo saaro meeshan dhagaxaanta yare soo jiijeeda diwaan ogeyn waan loo sheegay bay yiraahdeen marka wallahi waa runta waa sugaya bal haday sameeyaan iyo hadaan sameeyaan marka walaal iyadana saas oo kale in sameyn karnaa inaga u sameyn karnaa oo tusaale noqon karno oo hagaajin karnaa waxa kale walaal iyadana door muhiim ah role model baad u tahay kuwa ka yar qofka 15 jirka yar Soomaaliland ku nool aniga inuu ugu dayda maaha adigu aniga isoo eeg maybe adigu waliba anigana hayso eegna kaaniga iga sii reeg aniguna ka iga sii weyn baan eegaya I hope na naga nasiib badataan anaga ina idinku anaga naga nasiib badataan marka ka 15 jirka ka yar adigu role model waa marka doorkaasi adigu ku saareen haddaanad ilmaha doorka marka adigu 30 jir gaadho halkaaga soo buuxinaya aanu noqon ilmo ogaala oo wax og mas'uuliyadiisa garanaya oo dal jacayl leh oo wadaniyad leh hadaan halka uga tagin waxaad soo qabato dhan maxay Soomaalidu tahay tacab khasaar baa la dhahaa marka saan tacab khasaarkaas kugu dhicin adaa rol imika isbedel adigu si walaalkaaga 15 jirka ka yar Soomaaliland ku nool ama inta Soomaalida afka Soomaaliga ku hadashaa aad markaa tusaale ugu noqoto taasina waa taa oo mas'uuliyad ku saaran waxaad bari kartaa waxaan aanu bari karin ilmaha 15 jirka ka yar anigu hadaan la hadlo waxa laga yaabaa inuu ilaaw ciradaydan yar eego maybe hadaan calool yar caloosheeda eego maybe saan u hadlayo eego waxa la dhahaa peer education baa jiro intii isku day ama isku day u dhaweyba way wada hadashaa way wada sheekaysataa marka 15 jirka adaa u macallina waxaad bari kartaa waxaan bari karahay laakiin waxa la rabaa marka hore adigu waxaad isaga uga bari waxaad bari lahayd inaad barataan loo baahan marka oo mas'uuliyadda adiga ku saarantay marka wadani wanaagsan noqo si aad ilmaha ka yar 15 jirka ana marka wadani wanaagsan uu noqdo isaguna kaaga dambeeyo marka halkan waxaan doonaa walaal mas'uuliyaddan aad qaadato inaad mutadawiciin u noqotaan arrimaha social issues ka marka taagan ama dhibaatooyinka bulshadeena haysta ina agents of change noqotaan social actors dadkii ummadda mushkiladii markay taagan tahay marka dhalinyaradu u kacdo mushkiladda ee iyagu yihiin cid mushkiladda u taagan ee matalaya ee leh dhibaatada anagayna haysataa hadii dhibaato waxba laga qaban waayena waxa la dayacay 75% dadkii reer Soomaaliland haddaad adigu noqon weydo wakiilka ama voice-ka haddaad noqon weydo cidna waxba ka qaban mayso marka walaal taana waxaan doonayaa inaad iyadana ogaato sidoo kale walaal saad u qaadataan doorkiina anu idin maayo idinka taas waa qalad saad doorkiina u qaadataan waxa muhiim ah waxaad u baahan tahay in wax lagu baro waxaad u baahan tahay in lagu diyaariyo waxaad u baahan tahay in dusha laga la socdo waxaad u baahan tahay in lagu la taliyo waxaad u baahan tahay in lagu dhiirigeliyo waxaad u baahan tahay in xog lagu siiyo information ka aad u baahan tahay inaad hesho ayaad u baahan tahay taasna macnaheedu waxa weeye waa mas'uuliyad sida idinka ka 15 jirka ay u saaran tahay ayay markaa ninkii 15 jir dhaafay Soomaaliland mas'uuliyadaas u saaran tahay waa sababta halkan markaa caaw anigu markaa idin la joogo si aan xilka isaga rida markaa oo idin xasuusiyo in yaroon idinku xataxateeyo oo dabatana idinku markaa cilmi baaris samaysataan marka intaaba xaq baa u leeyahay dawladda xaq ugu leedahay mudanta xaq ugu leedahay dadka way araga xaq ugu leedahay odayaasha ilaa halkooda waxaan dadka idinka doorka idinka qaadanaya halkay ka baxayaan kuwa ka sii baxaya ayaa xaq ugu leedahay intaas oo dhan marka roolkaagu waxa weeye walaal waxaad tahay inaad noqoto maaha leaders of tomorrow laakiin waxaan doonayaa noqotaan the partners of today maanta marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliland bulshadan dhibaatooyinka haysta si wax looga qabanayo waa inaad joogtaan waa inaad qayb ka ahaataan meel kasta laga hadlayo waa idinka intii badnaya waa halka ay ka imanayso hadii la xaliyo mashaakilaadka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland haysta hadii la xaliyo waxay ka dhigan tahay 75% in Soomaaliland xalisatay mashaakilaadka haystay ka dhigan tahay bulshada reer Soomaaliland bulshada dhibaatada ku yartay noqonaysa hadii 75% la xaliyo mushkiladooda marka waa in maanta every ministry hay'ad kasta wasaarad kasta waa inay rafiiq idin la noqotaa ururada leedin rafiiq la noqotaa lala shaqeeyaa wax lala qabtaa hadii aynu sidaas sameeyno saala sameeyo waayo oo noqon weydo the partners of today leaders of today not tomorrow bari maxaad ku gaadhiday waa 30 jirka waa dhaafide marka 30 jir marka dhaafto maxaa lagu sheegay waa dhaaftay bade markaas marka intaasna xaq wada u leeyahay xaq baa u leeyahay waxaan kale walaal doonayaa inaan idin sheego
adduunyada waxaan idin leeyahay sameeya maaha oo waxaan idin yeedhinayo way dhacday adduunkana way ka dhacday warnimo yahow haddaad doontaan golaha deegaanka waa gali kartaan oo siyaasadda weydin oo gashay da'da ku galisaan oo garanaysaa imika sanadka Mareykanka inay baa soo gashay she's 29 years old waa 29 jir weey wax ku diidaya ma jirtaan cod yeelato doorkaaga siyaasiga ana wad qaadan kartaa marna cod bixiya tahay cod bixiyaha ugu balaaran baa tahay haddaad adigu isjeclaatay dhexdiina isjeclaataan golayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad geysan kartaan qaar codkiina ku fadhiya oo doorkooda qaata oo dhibaatada haysta dunida jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadla oo codkooda kor u qaado ila mushkiladina waa tii dhalinyarada xeerkani ummadan inay dunida jamhuuriyadda Soomaaliland xeerar baa ka soo burqanaya hay'adaheena dawliga xeerarkaasi miyuu qoran yihiin iyaga oo tixgelinaya in boqolkiiba 57 dunida jamhuuriyadda dadka reer Soomaaliland ay 5 jirka yihiin meesha uga shaqeynayaan doodaha dhacaya baarlamaanka miyay dhalinyarada mararka qaarkood u yeedhaan way dhalinyaradu mararka qaarkood inaad hadda doonayso aad dhisto waa inaad adigu marka maalin dhaweey islaantan yar qabsatay guriga sanadka Mareykanka caruurtii ay iyadoo ahayd iyo caruurihii kale ay la saaxiibka ayna ama kuwii kale ayaa meesha la keenay mushkiladu wax kale ma aha inay wax bartaan baa la doonayaa si ay doorkooda u ogaadaan gurigii shuruucda Mareykanka lagu maamulay lagu sameeyay ayaa la keenay wadiga arkay marka dhinaca markii la dhaarinay saanta afarta beeni jahada way ka mareen imisa jeerba qof ka yar ka weyn 15 jir oo ilaa meelaha 20 jir 30 jir aynu aragnay doodii baarlamaanka oo dhacaysa oo 10 dhalinyaro ay halkaas soo fadhiyaan dhageysanayaan la socdaan mararka qaarkood marna waa doonan kartaa mararka qaarkoodna madaxdayna ka timaadey ku wanaagsan tahay oo doorkaaga waa in lagu leeyahay awrka miyaa la iska raraa ilaa layli ilaa inta hoggaanka la baro uu haamaha daadiyo oo imtixaan la mariyo oo ninkan layliyo uu jiiro oo xariga gooyo oo uu baxsado oo haddana la furur xidho tacabba awr hayina lagaga dhigaatay marka dhalinyarada mararka qaarkood layligiisa ay u helaan iyadana marka arintaasina waa muhiim weeye marka waxaan doonayaa walaal inaydaan isdhigan dhalinyaro badan baa kacaano adduunkan ka dhacay hogaamisay oo adduunyadan bedelay qaar baa hogaamiyaal noqday qaar baa codkooda la maqlay qaar baa activist noqday oo laga seexan waayay marka waxaan rabaa walaal doorkaaga inaad qaadato inaad bari qaadatana ma doonaye waxaan doonayaa maanta inaad qaadataan doonaya doorkaaga halka ugu dambaysa waxaan rabaa walaalayaal waxaan doonayaa lecture-kayga inaanu noqon mid idinku diraya dadka idinka waaweyn ma raba sidaa saynu fahamtana ma rabo waxaan doonayaa walaal inaad appreciate garayso oo ka mahad celiso shaqadii wanaagsaneyd ee intii ka waaweyn ay qabteen odayaasha aynu positionskooda qaadanaysaan waa inaynu marka hore deegnayno u sii mahadnaqnaa Sonio way dadaashay shaqo badan bay qabatay if you don't appreciate hadayna ma ka mahadnaqin markay ugu yartay hoolkan hadayna ka mahadnaqin caawa fadhidaan beesh ku fadhidaan hadii ama Mansuur ama Ambassador lagu qaban lahaa caawa imsa soo yeel laga qaadi lahaa marka waynu dadkeenaga waaweyn walaal ku ixtiraamnaa u mahad celinaa shaqada wanaagsan ay qabteenna waa ku mahadsantahay walaalayaal marka waxaan doonayaa walaal dhalinyarada noqotaan you learn from the old dadka waaweyn wax ka barataan energy-ga ama tamarta ku jirto qofka dhalinyarada yihi marka lagu daro waaya aragnimada uu ka dhaxlayo qofka weyn labadaas oo la isku daray adduunyada way bedelaysaa Soomaaliland waa hubaal hadii tamarta iyo mataqaana kartida kugu jirta oo looga faa'iideystay waaya aragnimada inta ka waaweyn oo qaadatay Soomaaliland waad ku bedeli karaysaa si marka wixii aan ka hadlayay marka aynu isla fahanno conclusion-kii ayaan doonayaa walaalayaal inaan idin dul istaagtaago waxaan ku koobayaa ilaa 5-6 qodob oo man dul istaagayaa walaalayaal dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga hadlayo bulsho horumarkeeda waxa la yiraahdo adduunka oo dhan waxa jira youth participation dhalinyaradu inay qayb ka noqoto waxa dhacaya socda community bulsho kasto meel ku nool hadii isbedel la doonayo in lagu sameeyo dhalinyaradu waa inay qayb ka noqotaan waa inay wakiil ku yeeshaan gudiyada jira shirarka dhacaya waa inay ka qayb galaan
qaarkoodna way ka hadlayaan oo codkooda la siinaya qaarkoodna way dhageysanayaan oo waxbay ka baranayaan marka taas waa taa marka dhalinyarooy arrimaha idin khuseeya ee aynu ka hadlaynay qofkii dhalinyarada 15 jirka weynaa la 30 jir waa inaad doorkaaga qaadataa hayeen in lagaala baxsado lagaala tago مثلا Somaliland markay ka doodayso qorshaha horumarka qaranka de kaasaynu kaga hadlaynaa Soomaaliya bulshadeeni hadii biyalaada iyo hadii caafimaad laadi hadii iyo maxay qabsanaysaa hada Soomaaliya de waa inaad halka joogtaan de way wana halka joogtaan way fatsaala uma uga jeeda active members waa inaad ka noqotaan bulshadiina dhexdeeda in village level xaafadii baan ka soo bilaabaynaa degmadii magaaladii gobolkii hadeen marka heerarkaana waa inaad active citizens ka ahaataan oo marka degmadii ay dhibaatadeedii iyo arrimaheedii ka hadlayso waa inaad dee doorkaagii qaadataa oo joogtaa markaa weeye ilaa degmadii ilaa gobolkii waxaan kaloo iyadana waa idin xasuusinayaa waa inaad noqotaan members of the society ma doonayo dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa yara moodaa inaydan bulshadii marka laga hadlayo de bulshadu waa yade waayo bulshadu waayo bulshadu we define waxaan nidhi 30 jir buu ka yaryahay boqolkiiba 70 dad 3 milyan iyo bar Soomaaliya oran de ka gool 2 milyan iyo 400 iyo xogaa yar ka jarday inta maxaa soo haray de bulshada Soomaaliland si looga hadlaado maqan de adiga bulshadii waa adiga way bulshadii waa adiga waxana anu ma aha waxaan sameysanaynaa nimayo waa waxa qoran de dadka reer Soomaaliland waa inta da'dooda 15 jir baa inta ka gudoomiye waa ka fadhiya Soomaaliya this is what the report says warbixinaha la qoray Soomaaliland lagu qoray baa saalade marka de active citizens waa inay noqotaan oo bulshadaas aan la nooshihiin xaafadda degmada ama gobolka waa in iyadana markaa walaal xubna ka noqotaan bulshaduna waa in recognize karaysta contribution ka ageysan kartaan iyaduna waa labadii dhinacba doorkaagii markaad u diyaartay inaad qaadato haday doodayaashu waree ciyaal baa tan gaamus waradu meeshan kuma lihid magara oo de buus oo odayaashu oo inta badan anigu marka odayaasha waxaan u hay dhalinyaro moogta biniga ciyaalka bay oranayaan dad marka iyadoo arrimo Soomaaliya laga hadlayaa astaado tala ku darso oo waxa la doonayaa in lagu yara takooro magaraas de marka idinkana maxay noqonaysaa anigoo ciraystay baa ayaa geed leeyahay xidhaya marka bal idinkuna iska laakiin waxa la doonayaa inaad walaal dhisataan ee la doonayaa oo idaan qoosan waxaan kaloo walaal doonayaa inaad sidoo kale rangaraysaan arrimaha nimanka local services ka aha adeegyada la qabanayo bulshada loo qabanayo qaarkood in ay idinku qabataan tan caawa inuu haynaa kamida tusan iyo haysa kamida tiir jabir geedber baa kamida waxa kale oo samaysan karnaa xarumaha meelaha dhalinyaradu ku ciyaarto inta badan way deecan yihiin cilmo maamusho doorkaan waynu qaadan karnaa oo tusaalaha waxa kale oo iyadana loo baahan yahay inaad u istaagto oo waliba doonato cid ku siinmayso rights ka iyo xuquuqdaada cid ku siinmayso marka adigu inaad u istaagto oo aad doonato waxa xaq u leedahay waxaan doonayaa walaal inaad ogaato there is what they call youth power awoodda dhalinyarada adduunka oo dhan ay ka jirtaa laakiin de mushkiladu waxa weeye miyaad ogtahay inuu jiro inaad awood leedahay miyaad ogtahay marka inaad taana ogaataan doonayaa markaad ogaato dad waayo waxaynu soo sheegnay in tirada iyo da'duba labaduba ay faa'iido u yihiin marka bulsho doonaysa inay isbedelaan ama dhaqaale koro ama bulsho ay horumar samayso marka haddaad adigu farihi tahay da'na adigu aad yar tahay macnaheedu waxa weeye de adiga Soomaaliland waa adiga weeye wadan kale kama hadleen Talyaaniga iyo Japan kama hadleen kaasi maybe dadka waaweyn laakiin Soomaaliland marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa qof dhalinyaro oo 15 jirka baa laga hadlayaa tiradu haday saxtay weey hadii kale waxa la qabsanayaa cid report ka qortay walaalayaal halka ugu dambaysa waxaan doonayaa walaal inaad xilligan waa xilligii waanigii afaf dhigtay 2019 wayna ka duwanaato 18 xilligan waa xilligii saxda ahaa mustaqbalkiina waa tihiin laakiin mustaqbalkii ahaataan ma ogtiin mustaqbalkiina idinku tihiin haddaad ogtiin mustaqbalkiina idinku tihiin mustaqbalkiina cidna gacanta ka gelin mustaqbalkiina idinku maamusha ila shaba
إلى شرنا sidoo kale codkiina ku bixiya idinkoo raacinaya shuruudaha mushaakilaadka idinkeeda haysta saa rabtaan wax looga qabto cod iska bixiyaha noqonayna marka codkaagana walaal ku doono in mushaakilaadka ku haysta wax laga qabto waxa kale walaalaan doonayaa iyadana sidoo kale inaad ogaato inaanad walaal noqon qof ka qayb gala isu soo baxyada siyaasiga meelaha shacabka Cabdikariin iyo dadkii lamada loogu tumayo qof iska soo baxay oo noqonay laakiin qof u soo baxay wuxuu soo baxayna garanaya wuxuu shacabka u tumayana garanaya wuxuu doonayay inuu maqlaana garanaya marka adigoo idinku dhexdiina midaysan mas'uuliyadiina iyo roolkiina bulshada ku lahaydeen soo fahmay dhibaatadayda haysata garanaya meeshii doontaba ka jirtay Soomaaliland dabeetana marka oran karaya waxaan doonaynaa inaan waxaan raaliga ugu dhex taaganahay oo kaliya inaan maqlo in dhawaaqan siyaasadeed iyo ballamahan la sameeynaya ay ka turjumayaan in wax laga qabanayo mushkiladii aniga haysatay dabeetana marka hadduu kaasi noqday mid mushkiladaada wax ka qabanaya markaasay xaq aad u leedahay labadaada gabcood inay sabciyaan ay isu tagaan laakiin haddaan dareenkaaga iyo mushkiladaada qofkani ka hadlayn iska dad meesha iska tagto unde sacabku unde iska tumin marka taana waan idinka dardaaraya nin kastoo siyaasiyana way u wanaagsan tahay inaanu khiyaamayn dadkiisa oo uu sacabka ku doono wuxuu aaminsan yahay ballan rasmi uu qaaday waxaan kaloo doonayaa halka ugu dambaysa Somaliland inuu ma wanaagsanaanayso idinku haddii doorkiina qaadan doorkiina adu ko inaad horta marka hore doorkaaga ogaato laba inaad doorkaaga qaadato saddex inaad dadka ka waaweyn appreciate garayso shaqada wanaagsan ay qabteen way aragnimadooda wax ka barato dabeetana idinku dhexdiina aamidoodaan hal codna ay yeelataan halkan imaka ka dhaqdhaqaaqadaan markuu nu weyn iska ilaad tolay reebalow idinku isu damqataan dhalinyarada halka ku nool maxay garoon u haysan in kuwa halka ku nool maxay xanuunada uga cabanayaan kuwa halka ku nool maxay saxumada uga cabanayaan codkiinu ha noqdo cod isu maqan hiilkiinu ha noqdo hiilkii dhalinyarada ha noqonina qaar qaybsan xuduudaha iyo waxa idin qaybinayaan ayaanay noqonin qabiilka haddaad qabiilka keento roolka dhalinyaradu leedahay ma qaadan kartid waayo meesha waxa ka baxaya adeeg I want you to listen that well haddaad markan waxa dhalinyara oo isku dana inta ka weyn 15 jir ilaa 30 jir waxaynu intaas waa isku dan hay fursad bay noqonaysaa dad qabiilka marka soo dhaxgeliso waxaad ilaabaysaa da'daadii baad ilaabaysaa waxaad ilaabaysaa inaad dhalinyaro ku tahay da'da ee ilaabaysaa marka waxa kugu mudaanaya qabiilka soo galay markii ka soo dhaxgelaya marka walaalayaal anigu ka wax ku waayo ugu horeeyay baan noqday 15 jir ilaa 30 jir baa isku dantiin isku duruuftihiin isku waayatihiin isku doortihiin marka doorkiina ina ogaataan doorkiina ina qaadataan bulshada ina ka qayb noqotaan bulshada Soomaaliland sheegayaan waa idinka. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.